Facebook live waxa weeye wax badan ayaa ka qaldan. aniga dad badan oo hadda wada laga saarin waa aragteen. aniga muddaba saasoo macnaha oo Facebookaygu macnaha uu yacni uu maaragtay dadka uga xirnaa oo dadku ma arkayaan. marmar badan ayaa maaragtay dad cadow ku ah maaragtay in midnimada Soomaaliya laga hadlo, in maaragtay macnaha ishak qabyaaladda loola dagaalamo, in maxaan ku rahay ishak nabadda loo ololeeyo ayaa jira. dadkaas ayaa waxay u sameeyeen dadka iyo annagana kala qariyeen. aniguna waa la socdaa. marka waxa weeye aniga laakiin hawada kama saarin oo ku guuldareysteen sababta aniga Facebookaygu maxaan ku rahay ishak page ayuu maaragtay ku xiran yahay. page waa page, marka website-na waa leeyahay. marka sidaa darteed way ku guuldareysteen inay hawada ka saaraan, laakiinse aniga iyo dadka ayaana kala qariyeen. laakiin waxaa ma qaadayaan. aniga mar walba videoga markaan duubo dadku way daawadaan, gadaal bay ka daawadaan. marka videoga sii share gareeyo wixii daawada wixii gadaal ka daawan doona insha Allah. hambalyo ayaan leeyahay madaxweynaha maaragtay macnaha la doortay maaragtay macnaha Somaliland, shacabka Soomaaliyeed reer Somaliland ay doorteen oo codkooda ay ku doorteen. runtii doorasho aad iyo aad loogu farxay ay ahayd oo maaragtay macnaha doorasho si amniga ku dhacday. shacabka halkaasna waxa weeye maanta inay yihiin shacab horumar iyo nabad iyo maaragtay macnaha ishak dimuqraadiyad diyaar u ah inay yihiin ay maaragtay adduunka waa caddeeyeen. shacabka Soomaaliyeedna waxay tuseen in ay ku dhiiran karaan inay maaragtay codkooda dhiibtaan oo madaxdooda ay soo doortaan. run ahaantii Somaliland waxa weeye doorashada ka dhacday waa doorasho Soomaaliya oo dhan, shacabka Soomaaliya oo dhan macnaha u ah yacni ishak markhaati ay ka yihiin oo u ah macnaha ishak tusaale u ah, loona baahan inay ku wada daydaan. saa la socotaan magaalo kasta ama degmo kasta shacabka Soomaaliyeed ku nool, ama hadday qabiil yihiin haddii ay dad Soomaaliyeed oo yihiin way codayn karaan. degmo kasta way codayn kartaa. marka saa darteed haddii degmo kasta codayso kaba soo qaadii maaragtay macnaha ishak gobol kasta caasimadiisa caasimadda Dhuusamareeb haddii ay dadka reer Dhuusamareeb ay codeeyaan oo codkooda ay dhiibtaan, oo ama qabiil ahaan ayagoo intay is abaabulaan ay codeeyaan oo qofkii ay doonaan ay soo doortaan, taas ayaa lagu gaari karaa doorasho qof iyo cod ah ayaan dhihi karaa. qabiil walba haddii marka ugu horeysa uu maaragtay macnaha asaga dhexdiisa iska codeeyo oo qabiil kasta shakhsiga ay maaragtay macnaha ay ku kalsoon yihiin oo hoggaanka ay u dhiiban lahayn ayagu ay doortaan, sidii markii hore doorasho dadban ay qabiil ahaan ugu dooran jireen xildhibaan maaragtay macnaha suldaamada iyo oo maaragtay doorasho laga soo fangareeyay waddanka Imaaraadka. tan shacabka Soomaaliya waxay samayn karaan qabiil walba hoggaamiyahooda in ay dhexdooda iska soo doortaan baa xataa lagu gaari karaa doorasho maaragtay macnaha markaas fikir ama mabda xisbiga lagu soo doorto. maanta doorashada ka dhacday maxaan ku rahay ishak Somaliland waxay ay doorasho shacabka Somaliland degan oo dhan qabiil kasta ka soo jeedaan ay maaragtay ay madaxweyne Ciro ay ku doorteen ayuu ahaa oo cod toos ah, cod aqlabiyad ay ku doorteen. taasna waxay caddaynaysaa inay shacabka Somaliland ay ka horeeyaan Soomaaliya inteeda kale 100 sano ayay ka horeeyaan dhihi karaa. marka waa shacab nabadda jecel, horumarka jecel. muuse cadowga ku ahaa ee maaragtay amxaarka ahaa ee cadowga iyo Soomaali nacaybka iyo maaragtay macnaha ku salaysna qabyaaladda isku darka ummadda Soomaaliya kala geynta maxaan ku rahay ishak gabdhaha Soomaaliya xirxirayo wariyaasha la caburinayo meesha way ka baxday. maanta qof walba oo wariye ah ama maaragtay macnaha ishak yacni maxaan ku rahay ishak waxa weeye ama activist ah maxaan ku rahay Hargeysa uu tegi karaa, wuu ku noolaan karaa, waxa weeye ishak maxaan ku rahay ishak yacni uu ka samayn karaa ayaan dhihi karaa. marka waxa weeye waa 100% waa guul. cadowgii mudacii ummadda reer Somaliland ku taagnaa ayaa maaragtay macnaha laga siibay. marka waxaan leeyahay guul ayaan leeyahay reer Somaliland usoo hoyatay waaye, ha ka faa'iidaystaan. ninkaas Ciro, madaxweyne Ciro waa nin khabiir ah, waa nin Soomaalinimada ay ku weyn tahay, waa nin degan. waxaan dhihi lahaa hala shaqeeya. waxaan sidoo kale aan rabaa inaan ka hadlo Axmed Madoobe, doorashada Axmed Madoobe uu ku qabanayo Jubbaland. runtii doorashada Axmed Madoobe uu ku qabanayo Jubbaland waa doorashooyinka hore uga dhici jiray Soomaaliyana wax iska bedelay haba yaraatay ilaa hadda ma jirto. xasan sheekh ayaa dastuurkii intuu la cararay qof iyo cod baan samaynayaa. qof iyo cod haddii aad samaynaysa ama dastuurka aad dhamaystiraysa waxaa loo baahan yahay qaab wada hadal ah oo ummadda Soomaaliya ay ku qanacdo inaad u dhamaystirtid. maahan inaad adiga wixii aad doontid aad ku qorqoratid oo aad maaragtay macnaha aad baarlamaanka lacag siisid oo ay saa kugu codeeyaan oo adiga maaragtay macnaha qof iyo cod baan dhigayaa. magaalada Muqdisho xataa xaafad ka mid ah xataa lagama codayn karo. meel walba Al-Shabaab baa haysta, meel walba maxaan ku rahay ishak amni ma aha ayaan dhihi karaa. anigu inay amni ahaato anigu jeclaan lahaa, qof iyo cod inay dhacdaan weligii taageeri jiray. laakiin qaabka xasan sheekh qof iyo cod uu maaragtay macnaha uu samaynayo waa qaab qaldan. anigu waxaan mar walba qofka u taagan shacabka Soomaaliya inay codeeyaan oo qofkooda oo codkooda ay dhiibtaan ayaa mar walba anigu taageersanaa, weligeena u ololeyn jiray. waa inaad taa ogaataan. marka waxaan
dhihi lahaa halka sana iyo barka xasan sheekh u dhiman inuu qaab wada tashi ah qofkii codkaas uu ku hirgeliyo oo maarata macnaha sheeg siyaasiyiinta maqan uu maarata macnaha u wada yeero oo maarata macnaha la wada tashto ayaa anigu kula talin lahaa qaabka hadda wax ku wada xasan sheekh qaab wax ku hagaagayaan ama qofkii cod ay ku dhici karto ma aha maxaan ku rahay doorashadii hore ka dhici jirtay Jubbaland ayuu maarata macnaha sheeg madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe uu maarata qabanayaa waqtigeeduna ku qabanayaa wuuna ku saxan yahay wax maarata macnaha kale maarata macnaha oo intaas dheer oo aan maarata macnaha aan dhahayo ma jirto wax laga qaadi karana Axmed Madoobe cid wax ka qaadi kara ka qaadi karta ama Jubbaland wax ka qaadi kartana ma jirto shacabka reer Jubbaland oo dhan Axmed Madoobe maanta way taageersan yihiin waana taa ogaataan sababta taageeraha Axmed Madoobe ku helayna waxay tahay markii ay arkeen shacabka reer Jubbaland dibindaabyada xisbiga damjidid ee xasan sheekh madaxweynaha uu yahay iyo ra'iisul wasaarihiisa maxaan ku kabaqaadka oo ay maarta Xamza la yiraahdo maxaan ku sheeg dhibaatooyinka ay ka geysanayaan Jubbaland markii ay arkeen ay ku qasbanaadeen inay Axmed Madoobe oo taageeraan saa la socoteen xilligii nabad iyo nolol ay dalka ka talinaysay 90% shacabka reer Jubbaland Axmed Madoobe way ka soo horjeedeen maanta wuxuu haystaa يعني taageero 100% ayuu ka haystaa Jubbaland Axmed Madoobe wax laga qaadi karna haba yaraatee ma jirto wax laga qaban karo haba yaraatee ma jirto maanta cid markii shacabku ay ka soo horjeedaan hogaamiyaha ayaa maarta macnaha sheeg waxa la dhigi karaa dimuqraadiyad buu diidan yahay qof iyo cod buu diidan yahay maxaa kale sheeg inuu isdoorto rabaa laakiin maanta cid dhahaysa Axmed Madoobe uu isdooranaya oo reer Jubbaland ma haysan maya qof maanta reer Jubbaland oo arinta oo maarta Axmed Madoobe doorashada uu ku qabanayo Kismaayo ka soo horjeedo ma jiro cabasha ma jirto marka sabab looga hor yimaado Axmed Madoobe oo loo yiraahdo Axmed Madoobe muddaad maarta intaas 12 sano madaxweyne tahay saana tahay iyo waa qaldan tahay iyo maba taalo meesha Axmed Madoobe boqolkiiba saxan yahay shacabkiisuna waa taageersan yihiin doorashada maxaan ku sheegay xilligeeda uu ku qabanayaa waana u hambalyeynaa وانا اسكن مدحوينه اسكو مر walba waxa way iska madaxweyne waa madaxweynaha Djibouti oo kale waxa way doorashadiisa waa doorashada iska sii ogyahay inuu asagu maarta madaxweyne noqonayo wax laga qaban karana way yaraatay male marka guriga gobolnimo ayaa u rajeenaya reer Jubbaland Axmed Madoobe maxaan ku raayay sheeg inta ay dawlad fiican oo maartay cadaalad iyo horumar ka shaqeysa inta dalka ay ka dhalanayso oo maartay macnaha sheeg Axmed Madoobe ha iska haystaan ay dhigala inta qalaasa iyo ashaab ay ka faa'iideysan lahayn maanta Kismaayo waa nabad 100% Bu'aala waa nabad dhammaan geyiga reer Jubbaland oo dhan maartay gobolka Gado waa nabad marka dhibaato inay isku abuuraan oo maartay ninkaas ay ka soo horjeestaan ninkaas ciidamo haysta Axmed Madoobe maxaan ku sheegay Jubbaland oo dhan maanta asaga ayaa maartay macnaha sheeg dabka u shida taageerayaan dhira Xasan Sheekh waxa uu inahay damjidid waxa inahay sabeeraatay ma jirto iyo Xamza waa nin kursigiisii waa nin maarta macnaha isha kursigiisii lagu maamulo oo ergey loo sameystay nin ergey loo sameystay ee kursigiis lagu maamulo jeebka Xasan Sheekh ku jira oo maalin kasta warka uu sheegayo loo yeeriyo oo aan xataa magaala xataa Soomaaliya gudaheeda xataa aan maarta yani isha aan goboladii maarta macnaha isha ku matalayo kursiga xataa aan booqan karin waay nin goboladii uu ku matalayo kursiga aan booqan karin muxuu Jubbaland u qabanayaa Puntland ma tagi karo maxaan ku sheeg galmudug qaybo kamid ah ma tagi karo Soomaaliya ra'iisul wasaarihi Soomaaliya waa iqlig waa ra'iisul wasaarihi Soomaaliya wuxuu xaq u lahaa inuu tago SS inuu malaas aan tago inuu Boorama tago inuu maarta sameyn karo waa nin magaalada Muqdisho maxaan ku xabsi ku jira oo maarta xataa aan waxa uga shakisanaayba inuu kuwa maarta qadada u kariyo Xasan Sheekh inuu kamid yahay cabitaankan oo keena marka Xamza baana ma ahan taana ma aha Xamza wax uu inii sheegay reer Jubbaland oo habeeraatay ma jirto Axmed Madoobe iska iimaansadaan leeyahay inta maxaan ku sheeg dawlad ay ka dhalanayso dalka wax dawlad leeyahay habeeraatay oo ka jira habeeraatay malaha maxaan ku sheeg waa dhowr iyo 10 sano dawlad waxa ugu dambeysay dawladii maxaan ku sheeg oo iftiin yar aan aragnay oo hadda waxa Xasan Sheekh uu maarta macnaha uu yani sheeg yani uu maarta qabanayo oo dhan soo qabatay oo maarta u diyaarisay waa dawladii maxaan ku sheeg Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha ka taas ugu dambeysay dalku maanta 3 sano iyo 2 sano iyo bar aan dhahe waa dawlad la'aan marka cid la taageeri cid maarta macnaha sheeg wax loo yeerin karo iyo cid la caburin karo iyo cid dastuur lagu qasbi karo habeeraatay ma jirto dadku waa madax banaan yihiin waa aragteen maanta doorashada Soomaaliland ka dhacday shacabka reer Soomaaliland waxa way 100% waa u hambalyeynay iyo Soomaaliya oo dhan
madaxweyne Ciro waxaan ka codsanayaa inuu maaragtay macnaha ishag uu la galo heshiis inuu la galo maxaa maamulka SSC ciidankaas 400 gaaray ee xabsiga ku jira in maaragtay macnaha wada hadal uu kala galo oo meesha laga soo daayo muddo hadda 5 bilood 6 bilood bay xiran yihiin marka qarash badan oo ku baxaa caafimaadkooda aad u liitaa marka madaxweynaha maaragtay macnaha ishag dimuqraadiga maaragtay madaxweynaha ishag shacabku jecel yihiin maaragtay madaxweyne Ciro waxa ka codsanaya shaqada ugu horeysa oo qabanayo inuu ka dhigo inuu soo daayo maxaabiistaas maxaabiistaas inuu soo daayo oo shaqada ugu horeysa ay noqoto ayaan maaragtay macnaha ishag aan rajaynayna insha Allah maxaan ku raadayay waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo intaasaan kusoo gabagabeynaya meel walba adduunka ka joogtaan videoga sii share gareeyaan le sii share gareeya